بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال meelo baad inaga daawaneysaan kuna soo dhawaada warka telefishinka caalamiga ee Royal oo idinkaga imaanayo xaruntiisa dhexe aan ku leenahay magaalada caasimadda ee Muqdisho warka waxa ay la socodsiin doona hadduu Rabbi idmaanigo Cabdiraxmaan Saciid Xasan Cabdiraxmaan Talante madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa kaga qayb galay munaasabadda lagu weyneenayo xuska kowda Luuliyo استاديو كونيس magaalada caasimadda ee Muqdisho munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariiso iyo saraakiil ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya iyo waliba asluubta iyo booliska Soomaaliya ayadoo ay gobjoog ahaayeen bulshadeynta ku dhaqan digmooyinka gobolka Banaadir ugu horeyn waxa munaasabada ka hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo wadaniyadu waa waxa ummadan iyo dalkan isku xiray waana ummadda kaliya ummadda Soomaaliyeed aan isku keeni karno maxaa yeelay waxa naga dhaxeeya hal dal ayaan leenahay oo wanaagsan Ilaahay nagu abuuray oo loo baahan yahay inaan ilaashado inaan difaacno sharafkiisa iyo karaamadiisa soo celino صوت صار كدوات وحقيقة الكفر قلي وحقيقة إلى ضد إلى كالتجان وحقيقة ضد إلى تبغون غير تمروي وحنوبة هي إن بدنا نوقف فكرنا تورو ووحير تورو ووح قوش دجو لكن ذلك لقبل أب الله يعده إلا راس كبوني هذا هو هيسته ما حد تقولك هو كي tuulo maxaa ku wakeeyay adigoo dhulka intaas leeg haysta adigoo badda intaas baaxadeeda leeg haysta waxa ku wakeeyay tuulo oo tuulo uga jeceshahay dalka runtii waa waxa aan ka shaqeynayno inaan horumarino wadaniyadda iyo wadan jecelka intaasi kadib markuu kulanka soo idlaaday ayaa waxaan la kulanay gudoomiyaha degmada Xamarjab mudane Oranjo iyo waliba gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir ما شاء الله الحمد لله ما أنت وحى فرحات وين إنه إن كقرب قلنا دبلدقة تضبط كحرية ما أنت وقيمها بالنيد وكود لولي أو أستيسان إسراع على بدو قبل وقوي كفر يمركي قبل هذا كفرات كحروبين جمستيه طليانية ومدة الصومالية يعني كلا سمنا هيدرين كفرحات يودينيات يغير ما أنت قيمها جار كوفر الصوماليين aan ilaashana midnimadaas iyo wixii mataqaana abayaashana ay u soo halgameen ay u soo dhinteen muddo markii calanka 1960kii Soomaaliya markii ay xorriyadda qaadatay ilaa iyo 90kii markii la soo gaaray muddo 30 sano waxa lagu jiray damaashaad iyo farxad iyo in fantasiya lagu dhigo fagaaraha Tarabuunka waxa soo marnay 20 kale ama 30 kale ku dhawaad oo burbura oo aan calankii dhulka laga soo qaadin laakiin maanta saraa loo qaaday Soomaaliya waa wada xustay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وما سنتين رمان بهوينتا رويال تي في أقاسميه هذه شغالة جودهان هالودينا ده أردني رضاه رنانتي ما أنت وحفر حد وين نوع إن كقرب قلنا مناسبة دي كوغ لوليو ورنانتي كسورة سنة جرودي كسورة تكونتني سجالات إن دلني رضا أو أنت أنا دلني رضا إسكوس وبحان كنا قرب قاتان وواح وين رنانتي دلني رضا أنا أدو جدان رنانتي كمسو جارن حلقي جمسي دلك لقى ساري درين كود مركز حلقي ضدك يعني حلقي joogay dareenkooda sidoo ahay laakiin wuxuu ogeen taariikhdii iyo waxay hayaan warbixintii laga diyaariyay iyo awoowayaashii geesta kale waxa magaalada Muqdisho xalay lagu xusay munaasabada kowda Luuliyo ayadoo uu goobjoog ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayadoo cutubyo ka tirsan ciidanka militariga iyo waliba saraakiisha ciidanka qaatay salaan sharaf